إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan ilaahay u baryaynaa inta dhimatay inuu naxariis janno ka waraabiyo, inta dhaawacna caafimaad degdeg ilaahay noo siiyo. runtii waxaan soo booqanay dhaawacyada dadkii dhibaatada xooggan ay ka soo gaartay qaraxyadii qolada khawaarijta ay la beegsadeen shacabka degmada Maxaas degan, taas oo keentay qasaare fara badan oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa meesha ku dhaqnaa. dhaawacyadii la keenay magaalada ayaan caawa soo booqanay oo aan u soo duceynay. waxaan naloo xaqiijiyey in ilaa 35 dhaawac ah in shalay la keenay oo degmada Maxaas laga keenay. 35 mid ayaa geeriyooday oo asigoo maaragtay diyaaradii ku soo dhintay. 11 way baxeen oo dhaawacyo fudud ay qabeen way baxeen. haddana waxaa ku jira 23 ayay ku jirtaa maanta 5 kale la soo kordhiyay. 28 ayaa hadda isbitaalka ku jira. waxaa ka mid ah 28 kaas isbitaalka ku jira gabar qoyskeeda oo 11 ka koobnaa ayada le ka nool oo ayadana dhaawac qabto ayaa ka mid ah oo 10kii kale ay geeriyoodeen. qoyskaas oo 11 ka koobnaa 2 ayaa dhaawac noqotay, 9na meeshay ku dhinteen. 2dii dhaawac noqotay oo gabadhan hadda jeeftay isbitaalka iyo aabaheed ah, aabihiina markii halkan la keenay ayuu dhintay. marka ayada un baa ka soo hartay. waa murugo iyo xanuun aad u fara badan oo ay ummadda Soomaaliyeed maalin walba u geysanayaan qolada khawaarijta nabadiidka ah. waxaan ilaahay u baryaynaa dhibaatada dadkii ay soo gaartay ilaahay in maxay u booga dhayo, qalbigooda ilaahay adkeeyo, sabr iyo iimaan ilaahay siiyo. inta dhimatayna ilaahay u naxariisto, inta dhaawacna caafimaad degdeg ilaahay siiyo. waxaa kaloo hadda imankadan aan idin hadlaayo isbitaalka Maxaas degmada Maxaas ku jira ilaa 12 dhaawac ah ayaa isbitaalka degmada Maxaas ku jira oo ayagana shacab ah. waxaa kaloo nala xaqiijiyey dhimashada shalayto dad badan oo shacab ah oo aan qoyskaas hadda wada meesha ku baay ay ku jiraan. dhimashada kale ee shacabkana inay gaaraysa maartay qaraxyadaas ay geysteen inay gaarayso ilaa 34 inay gaarayso. aad baan ugu murugoonaynaa shacabka Soomaaliyeedna murugada ayaan la qaybsanaynaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto dhamaadkii fidnada ay wadaan qolada khawaarijta ah oo halkaas ay ku soo gabagabowdo dhibaatadii ugu dambeysay ay geystaan ay noqoto ayaan ilaahay ka baryaynaa.